habeenkii saacadu markay ahayd 9kii fiidnimo tuuga duug ahayd oo lagu magacaabo Bihaar waxa si kadis hawada uga soo dhaxyeeray cod aan halkaas laga maqan muddo 20 sano ah codku wuxuu ahaa way imaadey cunadii kubadda ahayd ee macaanka iyo dhanaanka ahayd kaalaya qaata dadka tuulada waxay muddo dheer aaminsanaayeen in qof habeenkii cunto iibinayo uusan ahayn bini aadam habeenkaasna sheekadaas argagaxa waxay u muuqatay mid run ah Bihaar waxay ahayd tuulo yar oo ay hereerayeen kaymo madow guriyo dhooba ka sameysnaayeen iyo wadooyin cidlo ah marka qoraxdu dhacdo albaabkaas si degdeg ah ayaa loo xiri jiray qofna banaanka uma soo bixi jirin cabsi daraadeed dadku nolol caadi ayay ku jireen ilaa habeenkaas wax walba ay isbedeleen marka habeenkii uu sii madoobaaday dabayl naxdin la ayaa geedaha ruxaysay iyadoo sameynaysa sanqadh u eg neef qof dhimanaya mar kale codkii baa soo yeeray way imaadey cunadii kubadda ahayd ee macaanka iyo dhanaanka ahayd kaalaya qaata goobi oo guriga banaankiisa jooga ayaa argagax dareemay war xilligan kuma ayaa wax iibinaya mugdiga dhexdiisa waxa ka soo baxday haweeney waxay xirneed maro guduudan timaheedana waa ay dhaadheeraayeen waa ayna kala daadsanaayeen waxa ay wadatay gaari yar oo ay saarnaayeen cunadii kubadda wajigeeda qayb ka mid ah ayaa mugdiga ku qarsooneed iyadoo cod hoose ku hadlaysa ayay tiri marabtaa cunada kubadda wiil yahow goobi qalbigiisa cabsi ayuu ka dareemay laakiin damac ayaa ka xoog batay oo wuxuu damcay inuu cuntada cuno wuxuu ku dhahay waa imisa haweenadii si tartiib ayay u qosashay marka hore cun qiimaha marka aad cunto ayaan kuu sheegi doonaa goobi wuu qoslay waa bilaash miyaa ayuu ku yiri wuxuu bilaabay cunista markii uu qaniyadii ugu horeysay afka geliyay wajigiisa farxad ayaa ka soo muuqatay waaw wuxuu leeyahay dhadhan cajiib ah laakiin markii uu kii labaad afka geliyay indhihiisu si weyn ayay u kala baxeen haweenadii si tartiib ah ayay u dhoola cadaysay indhaheeduna si lama filaan ayay isugu bedeleen midabka cadaanka waxay ku dhahday gaajo badan ayaa ku haysay saxmiya cun si fiican u cun goobi wuxuu isku dayay inuu qayliyo laakiin codkii ayaa ku dhegay ilbiraqsiyo kadib dhulka ayuu ku dhacay isagoo gariiraya subaxdii dambe meydkiisa ayaa la helay wajigiisa cabsi ayaa ka muuqatay afkiisana waxaa ka soo baxday carro madow ah cabsi ayay dareemeen dadka tuulada ku nool oo dhan shiiba saare iyo sinaa ayaa isku yimid waxay dhaheen tani dhimasho caadi ah ma aysan ahayn annaga xalay codkaas waan maqlaynay saddexdoodii waa ay aamuseen waxay u tageen wadaadka tuulada dayaa shakar markuu sheekada maqlay ayuu indhaha isku qabtay kadib cod culus ayuu ku yidhi tani ruux caadi ah ma ahan waa qof argoos u soo laabtay waxay dhaheen yay tahay wuxuu qaatay neef dheer wuxuu dhahay 20 sano ka hor tuuladan waxaa ku nooleed haweeney la oran jiray Kamaala waxay ahayd haweeney sabool ah oo nolol maalmeedkeeda ka heli jirtay iibinta cunada kubadda dadka tuulada aad bay u jeclaayeen cuntooyinkeeda laakiin qaar ka mid ah dadka tuulada ayaa si been ugu eedeeyay inay cuntadeeda wasakh ku darto runtu waxay ahayd in aabbaha Saara iyo adeerka Shiiba ay doonayeen inay ganacsigeeda la wareegaan dadkii tuulada ayaa Kamaala si arxan darro u garaaceen kadibna waa ay eriyeen waa ay oyday oo waa ay baryoontantay laakiin cidna ma aysan maqlin ugu dambeyntii waxay ku dhimatay geed weyn hoostiisa geedkaas oo ilaa maanta habeenkii laga maqlo codad aan bini aadam ahayn ka hor dhimashadeeda waxay ku dhaaratay waan soo laaban doonaa qof kasta oo ay dulmiyana waan ciqaabi doonaa hadalka wadaadka kadib wajiyadii dadka oo dhan cabsi ayaa ka soo muuqatay laakiin iyadu waa ay dhimatay daaya shankar ayaa si hoose u yiri waxaa jira xanuun aan xitaa dhimashadu aysan joojin karin habeenkaas shantoodu waxa ay go'aansadeen inay qabtaan ruuxda habaaran waxa ay isku qariyeen agagaarka geedkii Kamaala ay ku dhimatay markii saacadu 9 saac gaartay codkii baa mar kale hawada ka soo yeeray way imaadey cunadii kubadda ahayd macaanka iyo dhanaanka ahayd kaalaya qaata markaas si cad ayay u arkayeen waxay ahayd haweenaydii waxay xirneed saari guduudan lugu gadaal u jeeda wajigeeduna wuxuu ahaa mid cabsi ah Shiiba cabsi darteed waa uu gariiray tani waa Kamaala ayuu yiri Kamaala si tartiib ah ayay ugu soo dhawaatay waxay dhahday ugu dambeyn waa aan wada kulannay Shiiba isagoo cabsi la gariiraya ayuu isku dayay inuu geesinimo muujiyo habeenimo kale saacadu markay ahayd ku dhawaad 12kii fiidnimo tareenka number 4 waxaa ka jirta aamusnaan aan caadi ahayn dabaashu waxay ahayd mid qabow saldhigga tareenka laga soo raaco waxay u ekeed meel laga tagay oo firaaqo cabsi ah meel fog waxaa taagnaa tareen duug ah oo meel mugdi ah ka soo baxayay magaca tareenkaas wuxuu ahaa tareenkii dhimashada qofkii tareenkaas eegaba qalbigiisa cabsi ayuu ka dareemayay Shiiba iyo Saahil ayaa iyagoo ordiyay soo gaaray tareenka waxaana la socotay Saara saddexdoodu waxay u soo ordayeen inay tareenka gaaraan soo orda tareenku waa uu dhaqaaqayaa waxay dhaheen waa nimid saaxib maxaad u walwalsan tahay fadlan kuraas aan fariisana aan hello aad baan u soo daalay saddexdii waxay fuulan tareenka kursigoodu wuxuu ahaa kursiga 8aad markii hore wax walba caadi ayay u muuqdeen dadku kuraastooda ayay fadhiyeen qaarna cunto ayay cunayeen wax yar kadib tareenkii si tartiib ayuu u dhaqaaqay markii qof walba uu nastay Shiiba indhihiisu waxay qabtay wax la yaab leh wuxuu eegay kuraasta ku xiga kadib si lama filaan ayuu u istaagay kadib wuxuu dhahay 1 daqiiqo tani maxay tahay waxay ugu jawaabeen maxaa dhacay wuxuu dhahay kursiga 8aad waxaa si toos ah ugu xiga kursiga 13aad Saahil wajigiisa yaab ayaa ka soo muuqday wuxuu dhahay waa runtiis kursiga 9aad iyo kursiga 10aad iyo kursiga 11aad iyo kan iyo 12aad xagee bay aadeen saddexdoodii waa ay ku wareereen isla markaasna oday ayaa agtooda soo fariistay wajigiisa murugiya cabsi ayaa ka muuqatay sidoo kale indhihiisa waxaa ka muuqatay cabsi aad u badan cod hoose ayuu ku yiri caruur yahay
dhankaas aadina waxay dhaheen sabab adeer odaygii neef dheer ayuu qaatay kursigaas waa kii ugu dambeeyay tareenka ayuu ku dhahay qofkii galana dib uma soo laabto saddexdoodii waa is egeen kadibna qosol ayayba ku dhufteen waxay u maleynayeen inuu odaygu uu ka cabsiinayo waxay dhaheen adeer waxaas ma jiraan laakiin odaygii waa uu aamusay wuxuu daaqada ka eegay mugdiga bannaanka ka jira wuxuuna u muuqday sidii qof xusuusinaya in meeshaan wax khatar ay ka jiraan markuu habeenku sii madoobaaday saacaddu waxay noqotay 1 saac habeennimo tareenkii oo dhan hal mar ayuu wada aamusay waxaana la dareemayay culays waxa kaliya ee la maqlayay waxay ahaayeen sanqadha biraha tareenka shiibaha hurdo waa ay ka soo dhici weyday cabsi darteed maskaxdiisa waxa ku wareegayay kursiga 13 wuxuu dhahay saahil kac hal mar aan soo aragno waridaa aan seexday ayuu dhahay kaliya hal mar aan soo eegno kadib waan soo laabanaynaa saara ayaa iyaduna tiri xaggee aadaysaan anigana waa in raacayaa saddexdoodii si tartiib ayay u soo istaageen iyagoo dhuumaalasanaya ayay u dhaqaaqeen dhinaca kursiga 13 markay albaabka gaareen waxay dareemeen hawadii oo sikadiisa u qabowday albaabka kursiga kalbarkiisa waa u furnaa gudahana mugdi madow ayaa ka jiray waxay dhaheen tan aad bay u yaab badan tahay mid ka mid ah dhahay aniga waa laabanayaa isla markaas cod hoose oo daciif ayaa mugdiga ka soo yeeray wuxuuna ahaa cod naxdin leh oo ku dhahay ha tagina saddexdood halkii ayay ku khalkhaleen lugahooduna sidii dhagax ayay noqdeen waa ay dhaqaaqi waayeen kadib kursiga hoostiisa waxaa si tartiiba uga soo baxay gacan madow oo gubatay farahana dhiig ayaa ka da'ayay waxaa meesha ka dhacay alla kala cararaay markay dib u soo jeesteen albaabkii si xoog leh ayuu isku xiray dhawaaqoodu wuxuu ka dhex yeeray tareenkii oo dhan fura albaabka fadlan ayay dhahayeen markaas gadaashooda waxaa laga maqlaayay qosol hoose oo cabsi leh qosol aan u ekayn qof bini'aadam ah waxay dhahaysay idinkuna waad ii timaadeen saddexdood si tartiib ayay gadaal ugu soo jeesadeen waxay arkeen muuqaal cabsi badan haweeney xiran saari caddaan ah timadhaa dheer oo wejigeeda cabsi yahay wejigeeda barkiisana mugdi ayuu ku jiray indhaheedu waxay ahaayeen mid madow ah oo wax dhan laga arkaynin wax caddaan ama aysan balahayn waxay si tartiib ah ugu soo socotay iyaga iyadoo qosol cabsi la samaynaysa waxaad haysataan wax aan aniga aan leeyahay ayay dhahaysay isla markaas tiiti shamaara ayaa ka soo gaaray isagoo halkaas yimid wejigiisa cabsi weyn ayaa ka muuqatay wuxuu dhahay maxaad halkan ka samaynaysaan degdeg uga soo baxa halkan habeen mugdi ahayd 3 gabdhood oo lagu kala magacaabo saara sihaam iyo kaafiya qolkii ay ka deganaayeen hostelka ayay fadhiyeen saacaddu waxay ku dhawaad 11 habeennimo iyagoo qosl iyo sheeko isku dhex jira ka wada hadlaayay saara ayaa tiri anigu waxaan arkay muuqaalka filimkaas aad buu u fiicnaa ayna wada daawana filimkaas habeenkii waayo habeenkii ayuu filimku cabsi yeeshaa laakiin sihaam intay neef dheer qaadatay ayay tiri waardiyahan hostelka waardiyeeya waa qof waalan waxay dejisay sharciyo la yaab leh 9 habeennimo kadib bannaanka looma bixi kara ayay tiri gudahana looma soo geli karo kaafi ayay saara ku tiri markaa meel kala helno ayaan u guuri doonaa isla markiiba dhac qof ayaa si xoog leh albaabka u soo garaacay saddexdoodii hal mar ayay aamuseen wadnahooda ayaa si degdeg ah u garaacmayay sihaam ayaa si tartiib albaabka u furtay dibadda waxaa taagneed waardiyihii hostelka sushiila indhaheedu waxay ahaayeen kuwa aad cabsi u leh maxaa leerku weli u shidan yahay ayay tiri waxay cod qabow ku tiri 11 habeennimo waa in qof walba uu seexdaa haddii aan mar kale buuq maqlo hostelka waan idinka saarayaa intaas ayay tiri dabadeed si tartiib ayay mugdiga ugu dhex luntay gabdhihii waxay dareemeen qabow jirkooda dhex socda waxay dhaheen waxaan dhan miyay ka tahay naagtan caadi maysan ahayn ayay saara si hoos u tiri laakiin maalmo kadib xaaladdu waxay noqotay mid ka siyaab badan maalin ayay gabdhihii hostelka iskugu yeertay iyadoo wejigeedu xanaaq ka muuqdo dhegaysta laga bilaabo maanta qofna jikada ma geli karo 9 saac habeennimo kadib waxay dhaheen waxaan dhan miyay kaa tahay iyagoo ay gabdhihii qaylinayaan waxay dhaheen marka qaar waan gaajoonnaa ugu yaraanna baastiya shaha ayaan samaysannaa indhaha shishiila ayaa casaaday waxay tiri qofna ma geli karo jikada haddii kale wax xun ayaa dhacaya markii ay hadalkaas tiri si aamuslaan ayay meesha uga dhaqaaqday habeen kale saacaddu markii ay 10 habeennimo saara ayaa caloosha qabsatay waxay tiri gaajo ayaan u dhimanayaa waxaan rabaa baasto kulul oo basbaas leh mid kale soo booday waxay tiri anigana rooti iyo ukuma ayaan rabaa ayay kaafiya tiri iyadoo qoslaysa laakiin si kadisa waxaa hoolka hostelka ka soo yeeray cod cabsi leh oo aad u la yaab badan can ayay maqlayeen waxay ahayd sanqadh gacmogashi jijimo ah oo marar badan isku dhacdhacaya saddexdoodii waa ay aamuseen waardiyihii ma yahay ayay saar si gariirla u tiri laakiin iyadoo jijimo ma xirato ayay sihaam ugu jawaabtay qalbiyadooda ayaa cabsi la gariiray iyagoo si taxadar leh ayay albaabka uga baxeen hoolku wuxuu ahaa mid aad u madow oo aamusan wax iftiin ah ma jirin marka laga reebo nal daciifa oo meel fog ka biliglaynayay maadaama aynu u soo baxnay aynu jikada aadno ayay saara tiri waxaa laga yaabaa inay waardiyuhu seexatay si tartiib ayay jikada ugu soo socdeen laakiin markay albaabka gaareen waa ay istaageen albaabkii jikada hore ayuuba u furnaa qabow daran ayaa gudaha ka soo baxayay waxbaa qaldan ayay kaafiya cod gariiraya ku tiri markii ay gudaha galeen codkii jijimaha mar kale ayuu soo yeeray cing laakiin markaan codku aad buu ugu dhowaa kadib tallaabooyin culus ayaa mugdiga ka dhex yeerayay tug
tug siyaam ayaa ilmaysay waxaan dareemayaa qofna daawanaya markaas mugdiga jikada dhexdiisa waxaa ka soo baxday haweeney dheer oo timaheedu ay kala daadsan yihiin indhaheedu waxay ahaayeen kuwo madow oo aan caadi ahayn afkeedana dhiig qalalay ayaa ka muuqday gacmaheeda waxaa ka buuxay jijimo duug ah oo dhiig leh saddexdii gabdhood hal mar ayay gadaal u boodeen waa maxay tani ayay dhaheen haweeneydii ayaa qosol argagax leh ku dhufatay codkeedu wuxuu u ekaa qof miid hadlaaya kadib si tartiib ayay madaxa u foorarisay waxayna ku tiri ma rabtaan jijimahan caanka noqday jijimihii gacmaheeda ku jiray ayaa si kadis ah jijimihii gacmaheeda ayaa si kadis ah u dhaqaaqay jang 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 markaas ayay gabdhihii ogaadeen sababta waardiyuhu uu mamnuuca jikada habeenkii saacaddu markay tahay 9 habeennimo waxaa jikada ka soo baxayeen ruuxyo aan bini'aadam ahayn